inta Soomaali nabi maxamed oo maqlayso anigu qof qabiil ku soo kortay ama taqaan ma ihi aniga magacayga kulay waxa dadka yaqaanaan hadda maama qatro London ayaan ku noolahay waxaan joogaa 29 sano ayaan qurbaha ku noolahay anigoo 5 sano jira Soomaali la iga soo waday hadda 34 sano ayaan jiraa marka aniga naxariista ugu badan waxaan ahay maamadii kafaalo qaaday abtidoon كلي أنا جو واحد يسوق على فيديو وحسن توب صوت دبي وما ركت أويس بافو كسر وضي أسوأ ورئيسنا أبتدون أيوة أبتدون وحوي هذا أنا جو واحد رباط طلو إن ماشي إذا صارتان حسنوا واحد حسن وجود جواب ينرامية مية كل هذا السكدوق مدحونا كل دوق أيام كو ما ركت إمام ضينا فيديو جي واحد كجبت أنا جو هو يضيع هالكان لندن كسوقن marka waxaan go'aan gaaray maadaama qurbo ku koray oo wadnayga aad daciif u yahay oo naxariis badanahay inaan wiilkaas kafaalo qaado waxaan la xiriiray haduu maanta maqlaayo yarka la dhahay life marqaata ayaan u haystaa sawirkiisa aan u diray waxaan yiri yarkaas abtidoon ii raadi waxaan rabaa inaan kafaalo qaado حتى وحن ربنا قدر الله إننا وكل ماشي للتاجر وقصوا مقطع سدح جروب كأوس باف وأفر روح رعاين ويربيش التضامن بقول يكون $10 مليبي كرتا قرش كايو بطي دبريد وحن الحريري حسن طاب حسن وحول جيي ولا العدد صدر يسافر بقول $1 وانكود دونا يهدي كله أم سوري ما دوني كرتا أفرتي بقول أيام قول عاري سيدك دقة أيام كدري حسن إن كي أقل كيس أيو كاني دبريد waxaa dhacday in awees baafo uu yiraahdo aniga lacag baa la iga dhacay aniga marka inanka maadaama aan mas'uuliyadiisa qaaday hadalka muhiimadda ayaan ka soo qabanaa warka lagu dheeraado ma wanaagsano waxaan go'aan ku gaaray inankii marka aniga maadaama awees uu dhacay xasan la yiri inaan xasankii ka shakiyo oo inankii aan mas'uuliyadiisa qaaday qofka dariiqan ka soo wari kuma sii deyn karo in aan noloshiisii aan maaragta mustaqbal u suubiyo shaqaabuur u suubiyo oo maaragta aan u geeyo walaalkay nuur أما ده يحصل تقانن وأنا عن ما ركت في على سكون قانون مال قرابة كنا هاي حشمتنا عنه هاي إكرامه يعيشي وهذا المرقاتي إذا هارن كسيده ودعي مركان إرادة أوتك أن ولالك ونضيع أوتك أبتدونه أنا قال كسر وحقوق قبنا يا هدان ميس وحقوق صار يبرع عدا أما المطبجات كو يبينا يو بالهرت على كاسيتك ما دام حسن الأمين ويقول لي أوس بافو أيو دعي الله يعلم وحجر الله نقول هل كان مركو تري أيان رامي إلى صواب لي قور هذينا وحقول هايو ما دام عاد كفالة قاضي إنك أنا هل كان وانقد المناهي أصلا وقد المنا وما ركت التلفون حتى يكونون هاد الكريم قشن كقاب بالله أقل كدق هدوء الدنيا هاي أنا قلنا رامي أنا ونبنا هاي هل سنة ماشي كشقية $100 ريال إسيا هاي ayaan ku bilaawili gabarna u ahay qof dhibaataysan baan ahay 3 waqti cuno enafo oo ugu filan ma helo waxaan cunaa cambuule habeenkii allergiga ayaan cambuulada u ahay haddaan dambi ku daraayo rabbiga wuu ii jeedaa caruur yar yar baan haystaa ma rabo inaan maaragta wax bilaadanka ina dhihin aan ka dhaho loo aniga ma ili qof sidaas dadka u dhibaateeyo walaaga ayaan ka shaqeeyaa iyo samafalaha bas marka nadaamiyo wuxuu yiri marka maama qatray ana igu dar waxa iga reebin halkan waa lagu kala yaacay awees baafuna waa la dhacay ninkanina waa tuug waa laga wada tagay ilaa farto balbalaarka ana meesha ha iga tagin waan dulmanahay hadda koorna codkayga si fiican ma loo maqlaa waa lagu maqlaa hadda koorna wuxuu yiraahday aniga waan xanuunsaday mar hore TB xanuunka la dhahay TB shada loo yaqaan ayaa igu dhacay marka haddaan raashin ana fucunin xanuunka baa igu soo kacayo hooyo iwad ooyin buu la dhacay wuxuu yiri meesha dinankii geeyay oo shaqaabuurka ana igu dar anigu markaasaan go'aan gaaray marka maadaama ana laba mooto bajaaj aanan u gari karin ama ana laba mis u furi karin inaan dadkii YouTube furaya qalbigayga isla markaa ku soo dhacay durbadiiba waxaan yiri okay nadaamiyo maadaama aad tahay nin heesaaya oo waliba wuxuu ku cod macaan oo maaragta waxa kala furfuri kara inaan kale abtidoon waa inaan dariiqa ka soo tagay waxna ma qoro waxna ma akhriyo waad garanaysaa marka adigu halkii hadaad kala wadaysa aniga waxaan rabaa inaan YouTube idin furo waa kaasa adna aqalkii waxa tagtaa nuur wuxuu ugu yiri waayahay hooyo waxaaba jirtuu yiri hooyo channel cirka marayo oo subscribe-kiisa badan yahay ayaan rabaa inaan soo wareegsado anigu markaa ma channelka cidiila iyo waxa anigu ku mashquulin waxaan ku ri okay nuur tag in aan ay soo wixi doono wuxuu ugu yiraahday waxaan rabaa in aad maaragtay aad ballan qaado oo di daarato aniga adan dariiq ugu daynin haddaan xasan ka tago
لو حسن وهدار اسكو حمان dib ugu ma soo laaba karo hooyadayna wiili gabar aan waxa ku biilo ma hayo madamaana qaaday hooyada inaad $300 hadii soo dirto oo ku biiliyo 3 bilood loo bishi $100 ku biili jiray raashinkaygana kafaalo qaad intuu YouTube-ka inoo kala kacayo waa 2 bilood oo xayisiiska naloo bilaabayo qalabka YouTube-kana adiga ayaa gadaayo aniga wixii oo dhan waxaan iri waayahay aqalkii nuur ayuu tagay wuxuu ugu yiri lacagta aniga igu soo shub kaamirada iyo waxaas waa $200 waxaan iraahday may anigu waxaan ku soo shubayaa dayax ama nuur saad u taqaanaan anigu ma rabo inaan adiga kugu soo shubo ama abtidoon labadiina inima kuuma soo shubaayo akoontigiina waxaan la hadlay dayax waxa uu igu yiraahday okay abaayo waayahay ana alaabtu soo iibinayo igu soo shub aniga marka waxaan iraahday nadaamiyow maadaama aan aniga inankan soo kafaalo qaaday oo rabo inaan ummadii aan wax taro oo maaragtaan samafalaanahay wixii percent in layga siiyo 30% boqolkiiba 30 si adiga masaakiinta aan wax ugu taro law aniga London aan ku noolahay waan darganahay famil oo ma sha Allah hantilaan ka soo jeeda anigu ma doonayo wax irsaaqada London la igu soo diro marka waxaan iraahday adinka midigtiina igu sadaqeeya fiidiyoona iga soo duuba shaqaabuur ayaan inii suubiyay waa kaas wuxuu ugu yiraahday hooyo waxay naadaale xoogeena iyo adigaba aniga male ilaahay ka sokow anaga caruurtaadi baan nahay maadaama aniga aan xasan iga xureeyay inankaana dariiqa noloshiisii aad bedeshay alla ka sokow hooyo waa balan warkaaga ayaa jira waxaan ka dhiganaynaa uu yiri gudoomiyaha sida gudoomiye gulfaan gudoomiye maama qatran ka dhigan doona adaa inaga masuula waxaan noogu talidana anagu ma rabno inaan maaragtay aan ka daba hadalno sida ciyaalkayga oo kale anigu waan aaminay isla aroortii waxa ay yiraahdo waxa la jabsaday xasan toob baalkiisi YouTube-ka baa la jabsaday ayaa la jabsaday markaas aniga shaki baa galay durbadiiba loo xidinka wuxuu lahay channel cirka maraya fiyuuska ma subscribe-ka ayaa soo geeysan doona shaki baa galay waxaan u wareysto hoos waxaan yiri hooyo nadaamiye hadii waxaas adiga qofka ku kacay tahay ilaahay ka baq iyo buu ka biilay xasan waa ku baryaaya iska sheeg oo wixiisi uu cili anigu qurban inta soo sano ku noolay ku koray xamar xatee ma xasuusto inaan maapka ka eega mooyaane Google-ka anigu hooyo waan ku baryayaa please ilaahay ka baq waxay naga geey anigu wanaagan jecelahay ma doonayo in wax la xumeeyo wuxuu ugu yiraahday okay aniga ayaa jabsaday waxaan rabaa marka in adiga kaliya aan ku sheego marqaati noqoto waan celin doona alaabta dabadeed sida la isku ogaay wixii muuna celin markaan arkay saldhigii wixii la iska dacweeyay hadalkii baan ku celiyay wuxuu ugu yiri maamumay anigu been baan ku sheegay haddana aniga maaha inanka markuu qalqalay uu kala hadlay aniga jaawa ugu dhamaatay inuu waxa ka dambeeyay asiga uu yahay ama ku xumeeyay ama guraha ka galo ha isdhaho journalka adigu ku sii shaqayso loo anigu ma garanayo aniga hadda iyo dan Soomaali weyn inta codkayga maqlayso waxaan rabaa in ragaas ad irsaaqadeeda iyo wixiga xalaasha xooleyga adiga qaadaan waliba waxaan ka sii caraysanahay inanka noloshiisa aan bedelay ee dariiqan ka soo wada ku magac dheer abtidoon fiidiyo uu soo duubay oo hiba falaq gabadha la dhahay ay ka duubtay oo hibana waliba iyo aflagaadeedo la soo sheegay wuxuu yiraahday maama qatra aniga ma ka faala qaadin iga ma soo wadin dariiqa Soomaali weyn ayaa wixii tartay waan carooday qofka nolosheedii aan bedelay maaragtay aantay sidaas aniga xaqiraayo xaqayga Soomaali weyn madaxa u saaraayo iskala weynba inuu yiraahdo maama waxaasi tartay fiidiyoyada iyo wixii marqatidii la hayaa xataa xasan aqal uu ijaaray muddo yar oo kooban habeen wuxuu lahaa aqalkan maama qatran uga mahad celina iyada ii kareeyday markii hore hadalka aan dib ugu laabtay xasan toob inanka gurigu ku haystay lacagtii xataa aqal baan ugu ijaaray umuuna ijaarin waxa la igu yiri inuu 300 asiga qaatay inankana uu $100 ku qarash gareeyay markaas xasan toob markii awood daafo baa dhacda la yiri buu isku xishoodo malaha aqal si degdeg uu ijaaray hadda waxa soo dhawaa laga soo gudbay aniga waxaan rabaa ragaas midka aan dariiqa ka soo waday noloshiisa ilaahay ka soo aan bedelay maalin walba intaan soo wacaan dhahayay adigu ha soo istaagin YouTube-ka maaragtay booraysan haddaad jeel weydo madaxa la marsada xatee saliid soo marso adigu iska jabi inanka iyo ayliya allaha xataa aan murugooday oo aan yiraahdo nadaamiyo lacagan ku soo diraa inanka aad ayuu caatooyay wajigiisa lafaha muuqdo sida god aakhir inuu ka soo baxay cudurka jayfiida ka baar anigu xumaan iyo cay kama wado hooyo kale ayaan u murugaayay soo baar ayaan lahay positive negative wuxuu noqdo ama TB ka baar labada baa lala baabaa inanka soo baar baa lahay ama hepatitis C and maxaa la ka soo baar wuxuuna xanuunka caafimaad guud ahaan hala baaro sida hooyaan lahay inanka cunto siiya
waxa dhar isku bedelay aniga uu iibiyay kollay maanta waad aragtaan sida uu qurux badan yahay iyo maalintii dariiqa laga soo wadaay inkirmaad ayuu qax ku siiyay buruuf xasan toob iyo waxaa lahaaya nidaamiyo weliba leh maama qatro from London ayaa ku soo dalbatay ma garatay asigoo lagu yiraahdo maamadaas ayaa ku soo dalbatay weliba inaan ag taagan oo la dhaho wees madaxii ma garanaayo oo asigana le war aniguna kama haraayo waan raacay abtidoon la yiri adigana qof kale ayaa ku soo dalba doonto laakiin maanta waxaa la soo dalbaday abtidoon maxaa la dhahaa anigu ugu abaal ku darooday abaalkaygu wuxuu ka dhigay weliba caay xataa maalintii ugu hadal dambeeyay wuxuu ugu yiri hoos baa laga hadlay anigu waan maqlayay codkan wuxuu ilaa ka nidaamiye wuxuu lahaa waxaan ku tiraahdaa maamada way waalan tahay ma cirbad bay ku duran tahay anigu waxba ma qarinaayo ayu meel duleesho ma gasho abaalkayga irsaaqadeydii sidaa baa la igu yiri maamadu way hadal badan tahay ma cirbad bay ku duran tahay anigu waxaan qarinaayo male markaan carooday hantideydii iyo abaalkii iyo wanaagii aan galay la igu inkiray oo nidaamiyihina xataa intaan la hadlo igu yiri habar yahay anagu kuma siinayno 30% waxaana anaga leh xoog baan ku haysanaa haddaad rabtana booliska Soomaaliya wac haddaad rabtana waxaad rabtaa fal anaga waxba inaga ma qaadi kartid